haatan daawadayaal dhinacayga waxaa jooga tababaraha koowaad iyo tababaraha labaad ee kooxdii dawladda hoose Hargeysa City Club oo galabta guul ku gaadhay garoonka Hargeysa Stadium xilli ay ku soo noqdeen mustawaha kaalinta koowaad ee horyaalka caasimadda Hargeysa bal dira dhaba iyo dareenkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim marka waraysa ilaahay baa mahad leh waxaan leeyahay alxamdulillahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala dhalimin ألف مرة يا رب العالمين إلهي ما هذا إسكاله هدي أنا بتقب يقول أنت بيسوك هاي الراعسي الحمد لله رب العالمين أنت كذب وعن سلام يا بعد سبورتسكا بعد تي في سبورتسكا وعن ترو كيبل أو هيلان هركع إيه هرمرك اللي سمالان وعن ليادي بعد ما سنتين مركع إيه وعن سلام تاجرش دولة هوسة ملك استجوان كذا دبدبة والله الحمد لله رب العالمين هدي إلهي نبتقبنا نقول دمي قوش إلهي نسيي إذا كنا بتكون سنتين مركع أفراد وعن سلام يا تيم كدولة هوسة مدفردية مد عيار يبا إنه تيم وحويه تيم كي عاصمة أو هجربح يددال موجي لا صور نقدي هجامنتي أي هريال كانوا هجامنين يدا وكم مغنى هجانكو تضرب معلومات كلية رجين تل يا وحويه يا هجامنتي نبعها إن ما أنت هريال كيسمع لنا يجوا هجامنين رجين تلك بدك قبتها هريال كأوي كدمين هذا السجال كلون وكلية إلهي ما هذا إسكاله أنا وحبق عندكم ما هيصنع إلهي ما هذا إسكاله لكن أنا وأنت ذالنا إلهي وعن كبر ينا إلا يكوش النصيو الحمد لله رب العالمين وأياد بعض ما هتصنت هاي توبرحينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan mahad celiyaa bahda True Cable oo runtii ah dhiirigeliya har iyo habeen u taagan sida ay u hagar bix lahaayeen dhalinyarada sportska ayaan marka hore aad u salaamaya marka labaad maamulka kooxda dawladda hoose ilaa gudoomiye ku xigeen oo halkan imka ka arkay Mustafa Jawhar oo runtii ah gudoomiye ku xigeenka kooxda gudoomiyaha Ismaaciil Cageere iyo kooxda dawladda hoose taageerayaasha ayaan ugu mahad celiyaa waxaan maanta farxadeeda dareenkaad arkaysaa way record baa noo yaalay kooxda goodir in aan wiligeedna taaban tii uma si adkaysanay ilaahay baana mahadda iska leh aad baad mahadsan tahay waxa dhinacayga taagan isaguna ciyaartoygii kooxda dawladda hoose galabta saddex li ka dhaliyay toddobaadkii sagaalaad ee kulamada horyaalka caasimadda Hargeysa Khadiir Mustafa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahad leh maanta waxaan ciyaaraynay kulankii ugu adkaa horyaalka maadaama uu kulanka ugu adkaa sababta wuxuu ku ahaa laba dhibcood baa lanaga horreeyay marka ilaahay wuxuu nagu guuleeyay maanta saddex dhibcood oo nadiif ah oo sharaf leh waliba inaanu qaadanay haatan dhinacayga waxaa jooga gudoomiye ku xigeenka naadiga dawladda hoose Mustafa Jawhar oo horena uga soo haan jiray ciyaartooy bal galabta dareenkiisa iyadoo isbuucii sagaalaad kooxdiisu ay la wareegtay horyaalka kala horeynta ay 22 dhibcood u gudbeen toddobaadkii sagaalaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahad leh noo fudeeyay inaan ka guuleysano kooxda koox aad u adag baan horta runtii la ciyaaraynay kooxda Bilayska dhigayga ahaa runtiina score baa noo yaalay scorekii baan runtii ayaan aad u jeclaynay si adkaysano ilaahayna waa noo suurtageliyay horta runtii kubad aad u qurux badan oo wanaagsan bay nala ciyaareen oo akhlaaq leh oo si wanaagsan noogu dhacday alxamdulilaahi rabbil caalamiin gool dhalintii iyo hoggaankiiba way noo soo noqotay labada way nagala wareegeen wiigii ugu dambeeyay sideedaad maadaama iyaga wada ciyaarnay marka ciyaartii sagaalaad gool dhalintii iyo hogaamintii baan la soo wareegno alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay ilaahay ha noogu sii wado insha Allah koobkaan rajaynaynaa ujeedadeedu inaan ciyaartan u guuleysano ma inaan koobka qaadnaan rajaynaa insha Allah tacaala aad baad mahadsan haddaan ka dareen celiyo kulankan maanta la yeelnay dhigayga Bilayska runtii kulan aad u fiican buu ahaa kubad fiican la soo bandhigay waaye badanna aan rajaynay inaan ka hortagno runtii Bilaysku waa dhiyuxaygii shakhsiyadeeda markaan ka hadlo abaal weyn baan Bilayska u hayaa shakhsi ahaantayda runtii tacab badan bay ugu leeyihiin Bilaysku laakiin haddana kubad markay timaado kolley way wajiye badan tahay waana hambalyeynaa tiimkayga kubadda fiican inay la ciyaareen sidoo kale waxaan ka hambalyeynaa tiimkayga dawladda hoose oo runtii soo bandhigay kubad aad u wanaagsan oo aan aaminsanahay in maanta insha Allah aanu rajadii u lahayn aanu gaadhnay qayb ka mid ah taasoo ah inaan horyaalkana hogaamino kooxdii nala hogaaminaysana aanu ka guuleysano waxaan aad uga mahad celinayaa maxaan ku dhahday True Cable TV oo iyadoo markaste dhalinyarada sportska iyo dhiirigelinta ka shaqeysa aad baan kaga mahad celinaa adigana bukaasay sharafta wanaagsan iyo karaamadaas aad baan islaamay dhammaan bahda sportska daawadayaal waxaa soo dhammaaday toddobaadkii sagaalaad kulankii ay wada ciyaarayeen kooxda ciidanka booliiska goodir iyo kooxda ku ciyaaraysay magaca dawladda hoose Hargeysa kulankan oo ahaa kulankii go'aaminayay dhanka kala horeynta horyaalka Soomaaliland ee kubadda cagta ee garoonka Hargeysa Stadium ciyaartan ayaa waxay ku soo dhammaatay 3-1 ay guushu ku raacday kooxda dawladda hoose Hargeysa tanina waxay keenaysaa inay fadhiistaan 21 dhibcood dhanka kala horeynta iyo toddobaadka sagaalaad ومقالكي دمع جلسي مبارك بوكاسي True Cable TV Hargeysa Stadium